gudoomiye ku-xigeenada maamulka duqa degmada odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo waxgaradka degmada Buloburte oo maanta kulan yeeshay ayaa raaligelin ka bixiyay hadal shalay ka soo yeeray gudoomiyaha degmada Buloburte Faisal Haajir Aadan waxayna raaligelin iyo bogaadan u direen dhammaan ciidamada Jabuuti ee ku sugan degmada Buloburte ee gobolka Hiiraan si gaar ah taliyaha ciidamada Jabuuti ee ka howlgala degmada Buloburte Colonel Maxamuud Cumar Faarax waxa halkan isugu yimid maanta waa waxgaradkii ama dadkii laga wareysan lahaa aayaha degmada Buloburte oo ugu horeeyay maamulkii degmada inta aanan ka ahayn ninka ugu sareeyay ee gudoomiyaha ku xigeenadiisii oo dhameystiran dhaqankii degmada dhalinyaradii iyo waxgaradkii waa waxa halkan isugu yimid saakay waxa la isugu kan yeerayna ma ahayn arrin kale arrin qabyaaladeed arrin dil arrin xukun ma ahayn waa aayaha degmada Buloburte iyo hadal ka soo yeeray gudoomiyaha degmada Buloburte oo run ahaantii gaf ku ahaa ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta ee jooga degmada Buloburte awalan hadalkaas gafka ah waxaan cadeynaynaa in aynan degmada Buloburte aysan la qabin gudoomiyaha oo isaga kaligiis ku yahay una ku kooban yahay waxaan rabaa marka inaan ka hadlo mid ahayd qabiil ay halkan u joogaan dadkan hadda meesha ku kulansan hal qabiil ma aha waa dadkii deegaanka degmada Buloburte run ahaan matalayay waxa halkan ay isugu yimaadeen waa gaf isaga uu geystay in ay ka dhayaan dadkii dibkaas loo geystay run ahaantii mid labaad ee aan rabo inaan ka hadlayo waxa ay tahay sida aan ognahay cid walbo meeshan hoggaankeeda qabata waxba jira lagu xuso run ahaantii wanaag ah oo cid walbo soo qabatay hoggaankan waxbay reebtay oo maanta lagu xusuustaa markii la arko marka waxaan maanta aad uga xumahay in gudoomiyahan lagu xusuusan doono dhibtu degmada ku reebay taasa ayaan dara wax laga xumaada ah wax xumaan lagu tilmaamo ah waxaan kamid ahay dhalinyarada degmada Buloburte waqtigii xirneed ilaa abtuna dadkii ka shaqeynayay maamul ahaado Jabuuti maalintii noo timid ilaa abtuna dadkii la shaqeynayeen maanta waxaan isugu imaanay waxay tahay AMISOM walaaleen Jabuuti oo gaf u geystay gudoomiyaha degmada Buloburte mana ku taageerino anaga gudoomiyaha uu yahay degmada Buloburte gudoomiyaha laakiin wuxuu qalad u geystay waa in anaga aan ka obarjaysan ka bixinaa ayadoo kumbudo isku duuban yahay mid labaad waxay tahay magaalada degmada Buloburte ayadoona maamul koosan imaanin oo maamul la isku soo raacin waxa ka shaqeynayay odayaasha dhaqanka ee oo maalin walba u soo jeeday oo waqtigooda ku lumiyay oo shaqooyinkooda u dayacay oo degmada Buloburte meel ugu bixi karin beerahood xitaa ka tacbo waxna ka tacbo degmada Buloburte inay ka shaqeeyaan baahideeda iyo xasiloonideeda iyo gudoomiyaha hadii uu dhaliil tabana waa in odayaasha marka hore u soo gudbiyaa kadib ka maamul ahaan ay u gudbaan AMISOM wixii oo ka tabanay kalum laakiin gudoomiyaha wixii ana u weyn ana u yar inuu ku dhaqmo ma ana hadaan dhalinyaranaanay ma ka qaadanayna degmada Buloburte waa AMISOM walaalahayn waqtigooda inoo soo hureen naftooda inoo soo hureen maalkooda inoo soo hureen meesha noogu yimid imise gudoomiyaha meeshan soo martay wali wax qalad ka sheegtay male gudoomiyaheena oo ku qaldamay arintaas AMISOMna waxaan u raaligelin ka bixinayna insha Allah taala wixii dhacay way dhaceen wax damana dhici maayo salaan kadib waxaan rabnaa maanta aan iskugu imaanay shirkan jaraa'id annagoo wakiiladii degmada ah odayaashii dhaqanka iyo maamulkii degmada ah waxaan iskugu imaanay falal labada maalmood ka socday degmada Buloburte oo waday gudoomiyaha degmada Buloburte runtii aan ka filaynay waa nin aqoon-yahana waa nin yaroo dalka wax ku bartay aan ka sugaynay inuu degmada Buloburte hormariyo runtii waxaa dhacday nasiib daro waxaa dhacday in degmadii Buloburte maamul iyo oday iyo dhalinyaro iyo aqoon-yahan ay hadda ku idil yihiin degmada ayaga waxay ka warqabinne oo marna warqad ka soo saaray odayaasha dhaqanka oo leeyahay kama shaqay karaan degmada Buloburte shirna ma qaba karaan AMISOMna ma u tagi karaan oo leeyahay warqadaas markaan la yaabnay dibadeed haddana maalintii labaad wuxuu ku xijiyay inuu yiraahdo walaalaheen hiil walaal ee AMISOM ayaa degmadii Buloburte afduubtay waxaasna waa gaf ay mudnayn nimanka walaalahayna ee deriska nala AMISOM walaalaheen hiil walaal Jabuuti waxay magaalada Buloburte timid
13 Maarso 2014 runtii ilaa saacadan hadda joogno waxa ay soo martay degmada Buuliburta 5 gudoomiye iyo kusimayaal wali ma aragnin dhahaayo amisom ma Buuliburta afduub ku haysato dhacaay nin dhahaayo wali ma aragnay aniga idin la hadlayo mas'uulkii asaga mas'uulka ka ahaa ee oday dhaqameedkiisa yanahay haddii la dhihi lahaa qabiila wax ka hadlay ama la dhihi lahaa Buuliburta wax halaysay aniga ninka idin la hadlayo waa aniga asagana isku iridaanahay dhowr maraan waxaan ugu tagnay gurigiisa war magaalada waxaan ka bedelaanay oo naga diiday waxaan u aragnay marka wiilka in meel kale looga sacabatumayo oo aan hawadayna hawan uu ku jira waa la talinay magaalada koray ka xiranta hoos ay ka xirantahay 7 sano ay go'doon tahay dhibaato maxamili karto dhibaatada ka dhaafaanay Faisal dhag jalaq uma siin ninkii lagu beer la xawsana Faisal waa nin aqoon-yahan waa nin reer hebela diidan reer hebela kana ninka dhaay waxa idin la hadlayo waa aniga oo ah duqii beesha oo asaga gudoomiyaha ay ka dhashay waxaan rabaa marka inaan maanta aan raali gelin aan ka bixino walaalaheen Djibouti warka ka soo yeeray gudoomiyaha degmada ma astaahilo mana la dhihi karo mana u qalmaan dhiigooda iyo dhacaankooda ku baxay degmada Buuliburta ariboorka uu leeyahay hal laygu wareejiyo hal maalin iska daay 5 daqiiqo ma hay karo waxa wiilisha ku dhamaanayay Djibouti ay ahaayeen qaraxyada ay gacmaha iyo lugaha ugu gurayeen magaaladan gudoomiyaala joogi jiray aniga hadda ma haday xataa dhibaato ku hayaan waxaan lahayn odayaashii aan nahay in noolo sheego nala yiraahdo war walaalaheen Djibouti annaga hadaan nahay maamulkii degmada waxaanay nagu haysaa iyo waxaanay nagu haysaa Djibouti waa nimanaan isku codnahay waa nimanaan isku diinahay waa nimo walaalaheen intan u yeernaa waxaan dhiileen war waxaan saayidad ku tihiin ka jooga nama ogsan dhihin walahay hadda dadka sidaanana ninkii og hanoo yimaaday ha arko wuxuu wiilka yiri dawladda dhexe iyo dawladda Hirshabeellaan rabaa inay dad u soo diraan war walaalayaalow imaada Buuliburta waxa Djibouti hayso oo gudoomiyada degmada laga hayo ama maamulka degmada laga hayo arka war waxba tari maha annaga umulusadii degmada nahay odayaashii dhaqanka nahay reer manihin 11 odayaan nahay dhaqanka degmadan ka tirsannahay qabiil walbaan ka koobanahay cid jifi oo la aadina male bal ninka qaldan iyo ninka saxan inta imaadiin degmada wax weydiiya degmada hal qof wax weydiimayso hal nimo wiilal inuu u yeertay meel tagay wax iska duubayna wax macna ma sameynayso waxa macna sameynaya xaqiiqada iyo wuxuu Ilaahay og yahay waxaan rabnaa inaan maanta ka jawaabno jawaab cadaana ka bixinayna waxaan rabnaa dawladda Hirshabeelle ee dawlad goboleedka aan ka tirsannahay maalin hore waxaan noo yimid asigoo beledweyne ka yimid oo dhahaya waa in ilaa waa in mudaharaad la qabta anaga mudaharaad Hirshabeellena ma diidaneen midda kale dawladda dhaxana ma diidaneen waxa marka loo mudaharaada oo umada loo kicinayo laamiga loo soo tuura waxaan garan karnaa ma waa diidnay soo beledweyne u tagay beledweyne noogala keenay waana diidnay war magaalo xildhibaanadiina laga soo dhaweeyay oo mas'uuliyiintii Hirshabeelle laga soo dhaweeyay oo la leeyahay hadana Hirshabeelle hadana loo mudaharaada anaga ma garan karno umada ayadoo jiifta ninkii kaaga ciyane ayadoo taagan lama hadli doono haduu Ilaahay yiraahdo umada hala dejiyo way degan tahay ciiday hadda haysata male Buuliburta waxay ku caan baxday qabiil meelay iska dhigtay dhaqan ay leedahay soo jiray dhowr iyo 10 sano soo jiray leedahay oo aan qabiil ka koobneen haddaan aniga maanta idifaaco oo aan ila Faisal waa ina adeerkay kan kale ku xigana waa nima uu yahay qabiil kale uu yahay ma difaacayna wuxuu yahay sheegayna ninka nagu nacayay ninka nagu jeclaanayo ma difaacayna annaga Allah naga koreeya magaaladaasaan u nahay dhaqan wax allaale wixii dhibaayo waa sheegayna
faysal laga bilaabo saacadaas waxaan rabnaa dawladda Hirshabeelle ee keentay shalay ee mas'uuliyiinta xildhibaanada leh ee dadka nagu matala ay fadhiyaan inay ka soo jawaabaan codsiga degmada Buuliburta haday ka soo jawaabi waayaan degmada Buuliburta waa tashanaysaa hoos loo maro waa tashanaysaa degmada Buuliburta waxaan rabaa gudoomiyaha gobolka madaxweyne ku xigeenka jooga gobolka inay arrinka farageliyaan walaalaheen hiil walaalne waxaan ka codsanaynaa wixii dhawaq xumo ah ee aagaaray inay raali ka noqdaan oo ay noo qabanin hal wiil oo ka hadlay degmada Buuliburta annagoo mas'uuliyiintiisi ah oo mas'uuliyiintii degmadana ay ku qancaan waxa aan ka jeedinayno degmada Buuliburta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay arrinkii ka soo yeeray Faysal Xajir shalay ka soo yeeray ayuu ku saabsan yahay kaasoo daba socda hel walaal Amisom iyo odayaasha iyo maamulka inta cijidi gaartay waaye hadalkan la fagurkiisu marka ugu horeyso waxaan ka raali gelinaynaa Amisom walaalaheen hel walaal waa nabad ilaalin warka soo yeeri ma aha war qabto raali gelin baan ka bixinaynaa waad arkaysiin bulshada qaybaheeda kala duwan waad arkaysiin xafiiskii degmada waad u jeedtiin raali gelin baan ka bixinaynaa Amisom qaybaha kale oo cijidu gaartane waxaan leenahay raali gelinaan ayagana ku wareejinayna warkaas waa war halnina bulshada qaybaheedii kala duwanaay haddoo wax ka waayay oo kaligii noqday xishoo waayo dhihi waayay war ummadii kale ma haysidee qaybta nabadgelyada ku dadaal haddoo dhihi waayay waa aragta gaar ah oo nin kasta saaxiibul aqli oo gara karo taa markaan raali gelin ka bixino degmada Buuliburta nin male ummana tali karo ninka yarka warqada aad u fara badan baan ka dhiibnay qayb kastaan ka dhiibnay oo dawladeed qaanadaan ugu shubnay hoos baan u degnay dadka saaxiibul aqliga ah ee cuqaasha ah ee ummadda mas'uulka ka ah waliba gadaashiisa mas'uulka ka ah ayaan u gudbinoo niri war lama kala maarmo degmada la wada leeyahay dhaliyada ummadda ka dhaxayso waxa sarada keenayo waa naga xaaraan ciidan u yihiin male Buuliburta ciidan u tahay male si gaar ahaan u la hadalnay si loogu aqli celiyo ummadda ula heshiiyo ninkii maamul waayay military waayay nabad sugid waayay boliis waayay odayaal waayay aqoon-yahan waayay arrimaha bulshada waayay ururka haweenka waayay Amisom hil walaal oo nabad ilaalina waayay ma u baahna turjubaan ma u baahna cid kasta saaxiibul aqli yahay wax garataa gara karto waxaan rabnaa ninka asaga ee ummadii waxba ka waayay mas'uuliyadiisana hadda ka oran ka hadalnay in mas'uuliyad magaalada looga dhigo aqliga bini'aadanka diidayo haddaan jawaab waaynay ee aqli saliim iyo cid xanaanaysan naga qabata aan waaynay waxaan hoos ugu rogmaynaa magaalada 10 qofood baa Allah ka dhigay dadan maamul iyo kala dambeyn leeyahay ma dhaqmi karaan inaan ku rogno dhiig joojintii magaalada kala dambeynteedii inaan ku rogno saacadan laga bilaabo ayaan ku jirnaa magaalada mas'uulkii lagu soo gaari lahay mas'uulkii magaalada lagu soo gaari lahay saacada hadda aan joogno wixii ka dambeeyo inaan ummadda la tashi badan ka sameeyno oo maxaan yeelnaa ka sameeyno oo maxaana dhibaya ka sameeyno hadda qaanadaasaan ku jirnaa korna waa loo sheegay waliba hoosna waa loo sheegay waxaan rabnaa warqadihii aan laga qoray oo la yiri ummaddu badbaaday u baahan tahay hoos loo malay qadadkay ku wada jiraan haddii asaga cid xanaanayso u aqli celiso faraha dhiigga ku lahaan tiraaho afka dhiigga ku lahaan tiraaho ummadda nabadgeli tiraaho magaaladaad u dhalatay ee yaray dhibka tiraaho oo ka daba timaado gacanta midga qabata la waayay ummadda danaysanayso war hoos loo leeyahay ma war xaqiiqa ah arrinkaasaan marka rabnaa in raali gelin ka bixino wada tashiga tilmaan ka bixino
ummaddii aad arkaysiin oo sawirka aad arkaysiin wax qabiil la yidhaayo qorofaad iyo maya buulaburta waa meel madaxeeda la isku haayo ummadaha ka dhexayso waa meel raalli la isaga yahay waa midabta ka hor meelowna aalin tilmaantaad ka garan kartiin inkastee bini aadana nin kastee bini aadana wuxuu garan kara waay ma rabo warka inaan badiyo rag baa iiga dambeeya ummad baa iiga dambayso jawaabtan bixinayniga raaligelinta iyo wadatashigu noocaas waaye mas-uulkii magaalada lagu soo gaari lahayna fadhigii haddou bilowday walaalahay warkay yireen horta aan la qabnaa waxaan soo kiciyey buulaburto sanadkii 8 noo socda maalinka ay naga tageen nimankii magaalada haysan jiro al-shabaab la dhahay nimankii noo soo gurmuday naftooda nooga yimid badda xamar baddeeda kale nooga yimid in maanta la yiraahdo wax aan waajibkeeda ahayn oo garaafeyna ama ceebeyna cambaareynayo in la yiraahdo taasaan maartay aan ka tiiraysanahay oo diidanahay Amazon waa walaalahayna waa niman Soomaaliyeed waa niman isku diin iyo dal aan nahay waxba noo kala go'nay bad xataa dhaxdayna kuma jirto waxa hadalkaas oo ka soo yeeray gudoomiyaha degmada Buulaburto waxaan ugu horeeyay degmada Buulaburto kana qabiil male wuxuu teergareey inuu iska hor keeno keenay asigoo cidna la tashanin odayaasha dhaqanka la tashanin maamulka asiga xataa oo madaxu u yahay la yiri oo la tashanin inuu warqadii kaligiis qoro oo yiri Hamilton u geeso yiri Hamilton Buulaburto afduubta ama inqilaabta yiri waa ceeb mid qabata Hamilton ma aha 8 sano la shaqeynayna Hamilton walaalahayna wax dhibaato nagar ma jirto away maalin heegan noo yihiin naftooda xawaalahoodii ku yaal Buulaburto ku yaal dadkii ay ka dishay abaalka shabaab oo ka dili oo ku dhaawacmeen ay ku dhinteen in la yiraahdo dawladda ku Buulaburto afduubaysa waa ka weyntahay Hamilton Jabuuti waa ka fac weeyay Ismaaciil Umar Geelle annaga ilaawayna qaybta hiiraan haduu yahay taariikhda la soo maray inuu naftiisa noo soo huray oo meeshaan naftiisa soo qod asaga raashinkiisa iyo daawo oo noo keenay Ismaaciil Umar Geelle loo meeyno waxaan rabnaa maanta aan u fadhinaa marka waxaan maanta u fadhinaa waa xamili wayne ninkaas ma xamili karno ma dulqaadan karno kursi damana noogu fadhiisama waxaan dawladda sare iyo dawladda Hirshabelle ka codsanayna in ninkaas dhaqso ay ka soo jawaabaan sidoo odayaasha hore u yiraahdeen jawaabtiisa aan helno odayaashii igu horeysay inta ay tiray waxaan la qaba waayo waxaan isla qabna waayo waxaan soo kiciyay oo iskugu nimid doomiyaha degmada Buulaburto shalay iyo daraato wuxuu waday waa waxaan u qaadan waaynay waa waxaan la jiifan waaynay waa waxaan ka joog waaynay walaalaheen Amisom kelmadaha uu ku yiri waxay u qalmaana ma ahan wax in la yiraahdo ma ahaan way ka banaayihiin waxay noogu yimidaadeen walaaltinimo iyo dhiigano isku yeela xaqiiqdii meeshaan nafba waa ku dhaawacmeen waa ku dhinteen naftooda ay noo huruufayaan dal dheer ay noogu yimaadeen ma ahan inuu iska yiraahdo walaxan ayaga inay yiraahdaan maaragtay u qalmeen inuu yiraahdo ma ahaan wiilkaas kelmadaha ka soo yeeray raalli kama nihin waxaan ka bixinaynaa raaligarayntaas oo intaan ugu okeysiin doonin hadduu ilaahay yiraahdo oo intaan ka badan doonto yaan la qabnaa ma ogolin in lagu xadgudbo la iska yiraahdo walaxay u qalmin walaalaheen Amisom odayaashii iga horeysay say u tiri waa sax gudoomiyaha degmada Buulaburto wuxuu ku kacay walaxan raalli laga ahayn reer Buulaburtona ay raalli ka ahayn waxa jira inuu bulshada qaybaheeda kala duwan oo la tashto wax meesha ku jiro waxa jira madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maanta nin walba inuu qanciyo yaa maaragtay yaa rabo asiga hal shakhsi inuu la hadlo oo maanta yiraahdo
waray intay iga jirtaa intaysi ii joogtaa inuu yiraahdo ma ogolo haddii maamulku tahay haddii odayaasha tahay haddii bulshada qaybaheeda kala duwan ay tahay waxaan leenahay waa nin doctor ebo waa nima waliba hore aan u arag waa intii ku horeyso kuma arag waa anaga waa fajacnay waa la yaabanahay ninkii naga soo gaari karo naga soo gaar cawashadeena waay ku soo dhawaada maalintii amisom buula burde ay timiday ilaa maanta oo shirkan jaraa'id la isku keen yeero laga hadlayo waxaan aaminsanahay oo ii muuqato aragti ahaan amisom inaysan wax laddi ku ah dadka degmada buula burte ku nool inaysan marnaba ku dhaqaaqin amisom inaysan ku dhaqaaqin wax laddi ku ah amniga degmada buula burte amisom inaysan ku dhaqaaqin wax laddi ku ah ama caqabad ku ah dadka masaakiinta ah oo degmada buula burte magaaladan buula burte amisom waxay timiday ayadoon airborkaas uusan jirin airbor uusan jirin qofkii dhaawacmo yacni meel uu ka baxo uu la'yahay qofkii iska shacabku waa caadi baawur in lagu qaado waa suurtagal laakiin qof yacni maamulkii ama ku dhex jiro ama dadkii magaalada nimankii baxay ay uga tageen ay fiiro gaar ay u lahaayeen haddii culays yar uu ku qabsado degmada buula burte asagoon meel uu ka baxa lahayn ayay yimideen airborkaasaa la xaaqay min maalintii airborkaas la xaaqay ilaa hadda subax ilaahay keeno waxa u kalaxo amniga ugu horeeyo sugo oo hadday miina ku jirtana ka bixiyo haddii aysan ku jirinna cagta soo mariya waa amisom waxaan ka raali gelinaynaa walaalaheen amisom hadalkaas gafka ah waa hadal aanan u qalmin waa hadal yacni u cuntamin waa hadal ayaga la yiri iska dhaafay bulshadii degmada buula burte deganeeday u cuntami waayeen liqi waayeen saa daraadeed waxaan iskugu imaanay inaan ambulance ka bixino raali gelin buuxda aan ka bixino wax alla wixii hadalkaas ku saabsan oo ka yimiday wiilkaas inay raali ka ahaadaan annaga ugu horeyno raali gelin ka bixinayno Soomaalidu waxay tiraahdaa ma tagay walaalkiisa u luqluqo ninkaas reer buula burte waaye dadka buula burte uu meesha ku matalayay intaanuna waa reer buula burte hadalkii gafka ahayna intaan waxay u fadhisaa inay raali gelin ka bixiso walaalaha heel walaal arrinka gudoomiyaha ka soo yeeray ma la qabno buula burte lama qabto waa ku kaligiis raalaha ka ahaadaan apologies-ka ay buula burte bixinayso na walaalaha heel walaal han laga qaataan intaasaan kusoo gabagabeynaa waxaan u malaynaa Faisal degmadan waxa la qabtay 13 Maarso 2014 ilaa maalintaas iyo maanta intii ka dhaxaysa anagu shakhsiyan intii badan waa taagnaa waa joogay 5 gudoomiyaha soo martay degmada buula burte intaas waxaan u malaynaa dhibaatan ka dhicin gudoomiyaha noogu dambeeya hadda joogo dhibaatan intaas na soo marin oo ka dhicin oo sameeyay maxay tahay muddo 6 bilood 7 bilood oo nala jooga intaas waxaan cadeynayaa anoo maamulkiisa ka mid ah ee degmada buula burte aan marag u qabsanayaa hal biri inuu san wax sameey ee degmada buula burte ay dul qaadanayso maamulkiisa u horeey hal maalin wax lagu wada jiray inuu san sameeyay xaqiiqdu halka weeye marqaati aan u qabsanaa degmada buula burte annagu markaan wax badan aan celinaynay aan hor taagnayn ka celinaynay iska horkeenka degmada ka celinaynay hay'adaha samafalka ee ummadaas wax u keenayo aan ka celinaynay dadka ciidamada afarta ciidan ee Soomaaliya midba maalin uu ku dhacay aan ka celinaynay Djibouti hadda markii dambe waxa uu keenay inuu naga dhuunto xaqiiqdiina beeligi sheegay ee markuu baxana aan la ogaan asoon cid u sheegin oo baxo markuu yimaadna aan la ogaan wuxuu doonana intuu idaacad la gala luuq ama qoraal uu la galo uu sameeynayo dhabtu intaa weey intaasoo dhan waxaan ooga xanuun badan oo maanta isugu nimid bulshadii buula burte isugu timid cid aysan ka maqnayn intii deganeed arrimihii annagu waa u dul qaadanaynay wax walbo Soomaaliyaan ahayn gacantaan isqabanaynay intaasna waxa weey wax allaalay wixii dhacdooyine waxaan la wadaagaynay dawladeena ee u horeeyo gobolka Hiiraan Hirshabeelle ilaa federaalka haddana waa la wadaagi doonaa wax allaalay wixii dukumeenti ah intaas dhacdooyinkii dhacay waa la wadaagaynaa hadii Ilaahay yiraahdo wixii oo dhan qodaxdiiba dhiig soo dhaaf waxaan u dul qaada waynay intaan isugu timid degmadii buula burte shalay dhacay maxay yihiin doraad wuxuu soo saaray warqad anan ka warqabin
ee uu ku masabidanaya maamulka degmada Buulaburte uu leeyahay asaas soo saaray arrinkaas waa been oo ku dhaleeceynaya odayaasha dhaqanka iyo ciidamada Djibouti ee il walaal arrinkaas waa ka daba tagnay qadkaan igiin soo dhigi doonaa warqadaas maamulkeennii kale waxaan ka koobnayn ilaa 8 qof isaga markii laga saaro 8deennii saxiixoodii 7deennii kale iyo waxaan inaanan ka warqabin iyo arrinkaas ina beenteeyay qadkaan soo dhigi doonaa meel walba intay qusaydaan u dhigi doonaa ee u horeeya gobernatooraha gobolka ku xiga madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle ku xiga madaxweynuhu ilaa wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle iyo dawladda hoose ilaa federaalka waa gaarsiin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo intii oo dhan wuxuu ku soo xijiyay shalay inuu intuu guri furto u yeerto saxaafad wax allaale iyo waxaanan arag iyo waxaanan maqal iyo waxaan hore u dhicin oo shantii gudoomiye soo martay degmada aan ka dhicin inuu ku sameeyo walaalaheen naf iyo maal noo soo huray ee degmada Buulaburte heel walaal ee heer Djibouti arrinkaas degmada Buulaburte aad ay ugu xumaatay xalay inta hurdo way yareed arrinkaas waan maantaan iskaga nimid waxaan halkaan ku cadeynaynaa ee aan la wadaagaynaa gobernatooraha gobolka Hiiraan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ilaa madaxweyne farmaajo waxba ka reebi mayno intaasaan la wadaagaynaa wixii intaa ka badan inay dhib kii Buulaburte ay u dulqaado waysan intaana waa ogeysiinaynaa waxaan halkaan isugu nimiday ee shirkan jaraa'id uu ku saabsan yahay ma ahan danaha degmada Buulaburte laakiin waxaan daba soconaa warkii shalay ka soo yeeray gudoomiyaheena ee aanan u dhamayn annagoo ah maamulkii degmada iyo Buulaburte ayaan daba taaganahay waxaan ka bixinaynaa apologize raaligelin waxaan leenahay ciidamada hiil walaal ee jooga halkan ee hiil 7 la yiraahdo qaybta ugu dambeeyay hadda taagan arrinkaas waxaan ka bixinay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad apologize aan ka bixinaynaa annagoo ah Buulaburte anoo ku hadlayo afka maamulka afka degmada mid maqan iyo mid joogaba waxaan leeyahay arrinkaas waxaan ka bixinay apologize apologize-kaas waxaan u marsiinaynaa taliyaha hadda sectorkan joogo ama degmadan joogo Buulaburte waxaan ku xijinaynaa midka gobolka hadduu yahay taliska xoogga Djibouti hadduu yahay wasiirka gaashaandhigga Djibouti hadduu yahay madaxweynaha Djibouti Buulaburte si wada jira ayay arrinkaas waxay uga bixiday apologize raaligelin waxa tihiin hiil walaal ma ihidin ciidamada kaleeto kuma magacaawno magacaas waxa la idinku bixiyana ciyaar ma waa noo dhimateen dhigiina noo shubteen laakiin gacan gogeega markay subagto waxa la yiraahdaa galadla shalay waxaan idin qabanaan maanta noo qabateen war xunna waa daba taaganahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.